hoostiisaha ee uu gabaadka ka dhiganayay Adolf Hitler. barnaamijkan xogaha dahsoonna waxaynu ku soo qaadanaynaa waxyaabihii dhacay maalmihii u dambeeyay howlgalkii gudagalkii magaalada Berlin oo sidoo kale calaamad muuqata oo ahaa dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida. markii uu bilaabmay xilligii guga ee sanadkii 1945 hadhaagii ciidamadii Jarmalku waxay waajahayeen culays ballaaran iyadoo ay dhanka bari ka soo ciriiriyeen ciidamadii Sofiyeedku dhanka galbeedna ay fadhiisteen ciidamadii xulafada ee uu hogaaminayay dalka Mareykanku. waana xilligii uu Hitler maalinba taxigta diidayay dalabyadii ku saabsanaa inuu isdhiibo. waana xilligii uu hogaamiyihii midowgii Sofiyeed Joseph Stalin amray ciidankiisa inay nolol ku qabtaan Adolf Hitler. taariikhyahanadu waxay aaminsan yihiin in bilowgii sanadkii 1945 uu Adolf Hitler ku qanacsanaa inay tiisii dhamaatay, waxaana uu bishii January bartamaheedii galay dhismihii dhulka hoostiisa ahaa ee uu duqeynta kaga dhuwan jiray, isagoo halkaa ku jiray tan iyo intii uu isdilay bishii Abriil ee isla sanadkaasi. waana dhismaha dhulka hoostiisa ahaa ee ku yaalay bartamaha magaalada Berlin, kaasoo uu ka sarreeyay xafiiskii ay isticmaali jireen raggii la taliyayaashiisa ahaa. 10 maalmood ka hor markii uu Hitler isdilay waxaa magaalada Berlin ka baxay generaaladii iyo saraakiishii sare ee dagaalka xilliga oo isna keligii ku go'doonsanaa dhismahaasi, waxaana la sheegaa inuu qaaday isku dagii ugu dambeeyay ee dagaalka oo uu ururiyay ciidan u badnaa xisbiyahanadii sida adag u rumaysnaa iyo carruurtii ku jirtay xarumaha daryeelka. waana ciidamada aan tababarka badan qabin ee haddana la kulmay dagaal kulul oo 4 geesoodba kaga soconayay ilaa ugu dambeyntii la soo jiray. 26 bishii Abriil 1945 ayay ahayd maalintii ay diyaaradihii waaweynaa ee Sofiyeedku duqeynta culus ku bilaabeen dhismihii la taliyayaashii Hitler, kaasoo ka sarreeyay dhulka hoose ee uu Hitler ku jiray. waana maalinta Hitler loo soo sheegay in la jabiyey oo la qabtay hogaamiyihii Talyaaniga Majaxanjixe Benito Mussolini oo ahaa saaxiibkiisii kaliya ee reer Yurub ee dagaalkaasi. waana maalintii uu sidoo kale Hitler maqlay warkii ku saabsanaa inuu isdhiibay generaalkiisii uu ugu jeclaa ciidamadiisa ee Himmler. wixii maalintaa ka dambeeyay Adolf Hitler waxa uu dhinaciisa garwaaqsaday inay khiyaamo jirto laguna jabiyo colaadii uu isagu bilaabay, waxaana isagoo ka baqayay in maxbuus ahaan loo soo qaado dhanka magaalada Moscow uu go'aansaday inuu isdilo. iyadoo 5 bishii May 1945 ay ciidankii Sofiyeedku meydkiisii iyo meydkii xaaskiisaba ka heleen dhismaha hortiisa. sababta dib u dhigtay ciidankii casaa ee Ruushka oo ay nolol ugu qaban waayeen Adolf Hitlerna waxa loo badinayaa in inkastoo uu Stalin amray in la qabto Hitler haddana uu doonayay in dagaalku sii socdo, maadaama uu ka baqayay in xukunka laga qaado dagaalka ka bacdi, isagoo si gaar ah uga warwarsanaa jacaylka ay dadka Ruushku u hayeen generaalka Ruushka ahaa ee jabiyay Hitler oo ahaa General Chakov, loona saadaalinayay inuu hoggaanka dalka qabto dagaalka ka bacdi.